gudoomiye aad baad u mahadsantahay inaad naga ogolaato martiqaadka aanu siinay ahaa ka codsanay in waraysigan kooban oo ku saabsan siyaasadda maanta ee Somaliland siiba ururadan cusub ee la furay waxaan ka codsan lahaa marka ugu horeysa si kooban inaad igu soo koobtid taariikh nololeedkaagii waqtigaad dhalatay halkaad ku dhalatay ilaa iyo imika halkaas sida bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jecelahay inaan fursadan uga faa'iideysto inaan salaamo dhammaan dadka daawanaya barnaamijkan waxaan u mahadnaqayaa marka hore Axmed Xasan Cawke oo ah qof Soomaalida inta afka ku hadasha ay runtii aad u wada garanayso iyo Cali Yare oo aan u arko inuu yahay khabiir arrimaha media maadaama ay ka shaqeeyaan si kooban waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1955 waxaan ku dhashay group hospitalka Hargeysa bahay markaa wuxuu askari u shaqeeyaa dawladda Ingiriiska ee markaa Somaliland gumeysanaysay dugsiga hoose waxaan ka bilaabay magaalada Berbera kuna dhamaystay dugsiga dhexe waxaan ka bilaabay Hargeysa dugsiga Axmed Gurey waxa maadaama askari ahaa waxa markaa haddana u bedeshay magaalada Burco fasalkii 7aad ilaa secondary-na wax ku dhamaystay magaalada Sheekh xamar baan markaa tagay waxaan ka mid noqday shaqaalihii dawladda meeshii guriga ka shaqeeyay waxa ay meel la yiraahdo hay'adda dan wadaagaha dadku 1980kii waxaan ku soo biiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya intii aan xamar joogay waxaan sameeyay digriga koowaad oo ku sameeyay maamulka iyo maareynta oo ka mid ah groupkii ugu horeeyay ee digriga ku sameeya macadkii loo jiray Sidam dadna waxaan galay MBA programkii halka ka socday waxa la bedelay markii dambe magaalada Moscow oo aan la taliyay safaaradda ka markii dambena aasiyaha safaaradda 1990 ilaa 96 waxaan wadan ku soo noqday anigoo ka mid ah asaasayaashii ururkii OCID waxaan wadan ku soo noqday dub 1999 intii badnayd waqtiga ka dambeysay Somaliland baan u badnaa xilal kala duwan ma ka soo qabtay xisbiga hore dabadna doorashadii baarlamaanka ayaan galay waxaan noqday xubin ka tirsan baarlamaanka waxaan la doortay gudoomiyaha golaha wakiilada oo ilaa maanta ahay 6 Oktoobar 2011 waxaan ka mid ahaa asaasayaashii asaasay urur siyaasadeedka wadani ee cusub marka isku celcelisay muddo intee leeg ayaad imika Soomaaliland aad joogtay waxaan isleeyahay 12 sanadood ama 12 sanadood ayaan wadanka gudihiisa joogay qoyskaagu ma dal joog baa mise dibad joog dibad joog buu badan yahay gudaha waa joogaan laakiin dibad joog ayuu badan yahay adiga waxa leeyahay guriga aad ku nooshay ma adiga ala mise waa ijaar ama kiro guriga ku noolay waa ijaar ama sadarna kama foga intii aan Hargeysa ku soo noqdayna guri kiraabaan ku jiray guri mali mid aan leeyahay waan wadwaday meel magaalada ka baxsan oo Soomaaliya xaafad cusub dega laakiin wali waa qabiyo goormaad siyaasadda soo gashay gudoomiye runtii fikirka asaaska OCID intii hore waxaan ahaa marna diblomaasi marna shaqaale dawladeed laakiin fikradda asaaska ururka OCID ayaanu goosanay marka anagoo group badan ah inaan wadanka soo noqono aanu ka qayb galno siyaasadda cusub ee Somaliland saddexda xisbi waxaad ii sheegtay OCID saddexdan xisbi qaranay imika jira inaad OCID aasaasteenba marka waxaan oran karnaa OCID baad ka tirsan
marka wixii ka horeeyay 6 Oktoobar sanadkii hore u cidbaad ka tirsan gudoomiye ururkii u ciduu jira oo weli uu taagay waana xisbi qaran waa maxay sababta aad uga baxday haddii aad dhaliishayse oo dhaliila ay jiraan ma u gudbisay see ugu gudbisay taariikhda cid waa xisbi qaran hadda waxaan ka mid yahay ururada hadda xisbiyada iyo ururada hadda tartamaya khayr baan rajaynayaa wax badan kaga noqon maayo laakiin khilaaf soo dhex galay ururka ayay ururku markaas qaarna goosteen inay ku sii jiraan qaarna goosteen inay urur cusub aasaasaan waxaa jira intii Somaliland ay qarannimadeeda dib ula soo noqotay gooni suutaaga ku dhawaaqday 4 dawladood bay nimka maran oo Cabdiraxmaan Allah u naxariistay iyo Xigaal Allah u naxariisto riyaala iyo madaxweynaha hadda waa 4 maamul ayaa jiray kulli halka aad ku socotaana waa kursigan lazman soma طبعا وهاجك haddiiba lagu doorto oo rajadaadu ay rumowdooban ku rajaynaya maxaa cusub aad isleedahay waanay jirin intii horeed ku soo kordhinaysaan dab Ahmed oo kulliba de waa arag baa tahay oo madaxweynaha wada soo shaqeeyay siyaasadda wadamadu waa isku mid in la hagaajiyo waxa jira mooyaane waxyaabaha cusub ee soo kordhiya waa wax kooban qof kasta ama tayeyn ama barnaamijyo cusub markaas dhibaatooyinkii jiro xal loo helo Somaliland dhibaatooyin badan baa haysta mar dhaqaale ha noqdaan ama bulsho ha noqdaan ama waxbarasho ha noqdaan ama caafimaad ha noqdaan ama shaqo la'aan ha noqdaan oo cudur aad iyo runtii aad u weyna qof kasta oo asleeyay waa mas'uul kuwa hadda jooga iyo kuwa iman doonaba oo kamid yahay ictiraafku waa arrimaha sugaya intaas aan malaynaya xalkoodu in laga gayooninin marka waxay la tahay uun hadda halkan taaganahay qof kasta wuxuu ku hameeyay inuu ka sii wanaajiyo urur baad furtay siyaasiya yaa kugu dhiirigeliyay dad ururka furtin soo fikraduna adiga ka ma Ahmed runtii ma jeclayn markii hore aniga iyo saaxiibaday baan urur cusub sameeyno laakiin khilaafkaana soo dhex galay ayaa un baa sababay inaan urur cusub furo adana ka fikiray ma kaliya ma fikirin saaxiibaday oo dhan oo isku raacnay arrinka in la sameeyo wax kasta waxa ka kamaan qoys runtii marka wax la bilaabay qoyskaaga ma ka talagelisay maxay ku yiraahdeen dadka talagelisay ila berigaas siyaasadda soo geliyay qoyskayga waxa jeclaynaa siyaasadda gelin laakiin Soomaaliya waxa tiraahdaa raganimada meelaan dantaada hayb ku jirtaa marka waxaan si ummadda bal inta active ka tahay bal wixii aad adeeg aad u qaban karto aad u qabatid bulshadu way qayb badan tahay gudoomiye oo dhalinyaro dad waaweyn dumar bartilmaameedkiinu qaybahaasi bulshada waa keesay aad cod u heshaa horta inta waa aragnimadii aynu helay doorashooyinkii galayna fartaahayn aqlabiyada dadka codeeya waa dhalinyaro iyo dumar odayaashu way dadaalaan laakiin mararka qaarkood waxa laga yaabaa hadduu safka ku dheeraado مثلا سوق ذي دبتان صنعهم بعض marka bartilmaameedkay waxa weeye dadka codka bixinaya oo dumarka iyo dhalinyarada maxaad u haysaan dadka bartilmaameedkiina imika isleedahay ma hayaan bartilmaameedkay waxa weeye wada jirun baa wax lagu qaban karaa inaanu ka soo qayb gelino talada iyo sidii mashaakilka wax looga qaban lahaa haday tahay shaqo la'aan oo dhalinyarada ugu badan haday tahay tacliinta ama jaamacadaha oo kooban oo fursadihii badnaay qof heli lahaa aanu helin marka aan jecelahay inaan maamulka xisbiga ka qayb gelino taladana ka soo qayb gelino golaha deegaanka ka soo qayb gelino ragayada dhalinyarada iyo dumarkaba oo talada iyagu wax ku yeeshaan oo dadkii talada goynayay mustaqbalka ka fikirayay ee siyaasadda jaan goynayay ay noqdaan
وهاجي قولها ديجان كانت سو هذا القاضي وأنا ترتنك وجويني مكان نقص صوت dadka ama bulshadu waxa laga yaabaa in badan oo wareystay xitaa fikradba kama haysan golaha deegaanka waa maxay macnihiisu bal in yar noo sharax golaha deegaanka waxa weeyaan hadaan tusaale soo qaadano dadkii degmada ama deegaanka ama magaalada laga hadlayo maamuli lahaa ee adeegii bulshada u baahnayd qaban lahaa marka waxa weey dadka ugu muhiimsan mujtamaca ee taabanaya noloshooda haddii Hargeysa soo qaadno waxa weeyaan dadkii mas'uulka ka noqon lahaa caasimadda Soomaaliland waxa qabaa inay muhiim yihiin dadka soo galay golaha deegaanka Hargeysa oo haddii la eego shaqada hor taala iyo qorshaha hor yaala iyo adeegga looga baahan yahay qabtaan ay markii qaarkood jagooyinka wasiirnimada ka muhiimsan yihiin baan qabaa marka waxa weeye dadkii deegaanka magaalada Hargeysa ka qaban lahaa burco ka qaban lahaa doorama wax ka qaban lahaa waxa la tabayo dadkii qaban lahaa way golaha deegaan golihii deegaanka sida aad noogu sharaxday waa meel muhiim ma jiraan shuruudo ku xiran qofkan golaha deegaanka noqonaya mase kula tan kuwii hore inay shuruucdaasi fuliyeen oo ay buuxiyeen oo sidii ay u hirgeliyeen kulliba way aragnimada ugu horeysa golaha deegaanka waxa kii ugu horeeyay dooranay nidaamkii hore ku dooranay iyo kan dambeena uu kala duwan yahay kii hore waxa dadka liiska ku qoran sida u kala sareeyeen bay soo baxayeen laakiin maanta waxa nidaamkii hore way aragnimadii dadku waxay door bideen in qofka isaga toos loo doorto oo mujtamacu ka isleeyihiin waxbuu qabanayaa aan liiska ku soo bixinay isaga hebel Ahmed Xasan Cawka haduu Hargeysa wax ka qaban karayo ama gabadha inanta heblaaye hebel oo loo arko inay bulshada wax badan adeegeeda ka tarayso in la doorto oo qofkii dadkii toos u doortaan taasi waxa leeyahay waxay fursad u siinaysaa dadku inay kala doortaan keeba wax qaban kara hadii 200 oo qof la soo hordhigo dadkii u taala inay qofkii wanaagsanaa doortaan hadhow cid kuma yeersan karaan laakiin waxa jira idinkaasi qoriyo Soomaha dadka xisbiga uga qayb galaya tartan dadku way soo doonanayaan sagaalka urur waxa laga yaabaa qof waliba Hargeysa hadaynu soo qaadno 25 xubnood sida xeerka ku qoran inuu sharaxo marka dadkii xisbiga la soo xiriiray ama xisbiga ahaa ama loo arko inuu wax qabanayo ayaa magacyadooda kulliba la gudbin doona iyadoo kulliba laga fiirsanayo wax badan qofkani inuu qofkii ugu haboonaa yahay inuu cod keeni karo inuu dad qofkii adeega ummaddu baahnaa qaban lahaa yahay marka idinka kala saaray xisbi kasta dadka u yimaada uu kala xulan doonaa waxaanu soo xulan doonaa inta uu leeyahay way soo baxaysaa waa laba sifood sifada loo kala doorta loo qoraa waxa laga yaabaa in mararka qaar la tixgeliyo si awoodda ama faraha uu reerkiisu leeyahay qofkan golaha deegaanka aad xulanaysaa si aad cod ugu heshaan iyo in la eego qofkani deegaankan uu ka yimid xitaa reerkiisa oo dhan hadduu 10 qof yahay ma uu qabanaya oo uu yahay qof kartila oo la yaqaan labada midkeed door bada saamid marka hore waxaan door bidaynaa qofka inuu yahay qofkii ku munaasibka ahaa tayadii loo baahnaa sifooyinkii loo baahnaa ee waxqabad ama tacliimeed uu leeyahay tal kale laftigeedu waa muhiim waa qodob labaad oo muhiim oo la tixgelin doono qofka codka intee leeg baa laga yaabaa inuu wato wasagaal imikas 6 urur iyo 3 xisbi qaran hore inta imika tartamasa 3 xisbi qaran hore imika taagan bal masaadin kartaa yaa soo baxaya yaan soo baxayn saddexdaba waxaad islada iyaga ku soo noqon sagaalka urur horta imtixaan bay wada gelayaan marka ilama qurux badnaa qof kamid dadkii imtixaanka gelayay kuwa kale yiraahdo wax ka sheego marka wax leeyahay waxaan guul baan wada rajeynaa laakiin imtixaan baan wada gelaynaayo waan leeyahay dadku u bato saddexda dadku u bato ayuun baa soo bixi doona
rajada idinku aad qabtaan waa intay laagtay waxaan leeyahay imtixaanka marka la gelayo dee horta cid garanti haysataa ma jirto laakiin haddana dadku imtixaanka siday ugu kala dadaal badan yihiin ayay rajaduna ugu fiican tahay marka waxaan isku tirinaynaa kuwa ugu dadaalka badan ururada hadda jira hal ama laba ma iiga sheegi kartaa isleeda wadi soo raaci karaa saadaasha imika maya waaya gudoomiye adigoo raalle madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo waraysi aan berigii ololaha lagu jiray saddexda gudoomiye xisbi iyo madaxweynihii hore daahir yaalaan weydiiyey su-aalan weydiiyaa waxaa ka mid ahayd haddii lagu doorto axsaabta ma furas madaxweynuhu haabu waanu ka dhabeeyey oo waa kan furan adiga ka gudoomiye ahaan waana 10 sannadood imika intay jireen waxa fiican in 10kii sannadoodba mar la furo mise in loo daayo saddexdan xisbi qaran inay muddo ay dhisaan oo kuwa agta ku taagan ay noqdaan axmedow deeta waa laga doodayo markii xeerkan cusub number 14 la sameeyay ururada labada fikradoodba waa laga dooday waxa la yiri ma saddexda soo baxun baynu deynaa dooda way ka mid ahayd mise 10kii sanaba mar baa la furaa waxa loo batay oo fikirku u batay in 10kii sanadood la furo saasaanay sharci ku noqotay way waxa la tixgeliyay ninka imika 20 jirkii 10 sano kadib waa 30 jir marka xaq uu leeyahay fursad la siiyo in madaxweyne noqdo inuu maamulka dalka ka qayb galo marka 10 sanadood dadkii dee soo kacayay siyaasadda ku soo jiray waa laga yaabaa dhalinyaro hadda 20 jir ama 20 jir deegaanka galaan oo hadhowto oo deegaanka siyaasaddu ka weeyasho marka fursad in la siiyo 10 sanadoodba ayay noqotay aqlabiyadii saasaan xeer ku noqotay hadii dee laga fikiro waxaan qabaday waxa umadu doorato ba sharci noqonaya siyaasad ka سيدو أركتا ودحضلدا سوماليلاند iyo Soomaaliya Soomaaliya waxa kamid tahay wadamada aynu shaarka nahay Soomaaliland ka soo laaqosan 60kiina qaran bay noqotay 26kii Juun 18kii Mayna mar kale ku dhawaaqday inay qaran madax banaan tahay marka dawladda siyaasadda guud waxa weeye wadamada shaarka oo dhan siyaasad jaarnimo ah oo derisnimo wanaag lagu la dhaqmo Soomaaliya waxay noo dheer waxba aynu wada wadaagni 60kii inkastoo heshiis qoraal aanu jirin waynu midownay mujtamaca dawladdu inkastoo inagu mar walba leenay Soomaaliland baynu nahay Soomaaliya inagu riixayaan mujtamacu intaas wuxuu lahaa la hadla Soomaaliya dawladihii Soomaaliya kala dambeeyayna siyaasadooda arrimadoodu waxay cid aan la hadalno hadaan helno wala hadlayna oo dadka ka wakiila marka waxay la tahay in mujtamaca dawligaana inagoo eegayna fikirkooda in la hadlo Soomaaliya waa go'aan hadda la qaatay marka waxaan la tahay maxaa laga wada hadlayaa weey Soomaaliya hadii la hadlo maxaa laga wada hadlayaa ninse fiiman loo weydiinayo waxaan ku yiri anaguna waxaan u qaadanay inaanu ka wada hadlayno sidii aan u kala tagi lahayn anaga iyo Soomaaliya iyaguna waxay u qaatay si Soomaaliya u midoobi lahayn marka waxay la tahay Soomaaliland ajendaheedu waxa weeye in Soomaaliya iyo Somaliland sidii ay u kala bixi lahaayeen oo laba jaaro dirisa ay noqon lahaayeen yuma asal ah oo ajendaheenu sideenna waa kaas ajenda kalena ma soo gali karo marka ajendaha si loo sii hormarin lahaa iimankooda hadli karaa su'aalo ka yara baxsan tan siyaasadda gudoomiye weliga ma lagu xidhay garan maayo wala xidhin marka waa lagu ma xidhin lama xidhin madaxweynaha Itoobiya magaciisa ma taqaan madaxweynaha Itoobiya wala kulmay
dhowr sheer laakiin hadda magaciisa korka kama hayo waxaan u malaynayaa kulley maba garanay sidoo markaa waad yaray balas habkii ugu dambeeyey ee Soomaaliland ee Britishka ahaa ma xasuusataa magaciisa ما قرنا لكن دبريا مش نشري ملاحظان هذا ما حصلت لكن هذا كرر أيه حين نقول شيء شيء كبير جدا به يا كرر بن مغلي إنه هاكي قدام بين وكي وريه قرنا وقت قاعد فراغ هذا لا محد كم أرودا ما يسكون لابس وقت أنت بدل ما حكي على هنا وحخريه وركنا ونداودا ما سبورتيغا waxaan jecelahay markaan shaqada ahayn kulliba guriga iska joogo inta badan ra'iisul wasaaraha Djibouti magaciisa ma tara ra'iisul wasaaraha Djibouti waliba muddo imika soo xaao Ismaaciil baa doortay oo magacaabay sida sharcigu dhigayana wanan anfara وانا سويقنا هايو وحالا مقايدة كل يتم لا حسوس زودة لكن سيدة وقرنا وقرنا وقدامينتي sideed u aragtaa 10 sanadood ee soo socda mustaqbalka Soomaaliya halkee ayaa digi lahayd waxaas leeyahay Somaliland waxaad moodaa mujtamaca dawliga ah inuu hadda attention ama u soo jeedo hadda ama wada hadalka Soomaaliya ha noqoto ama rajada laga qabo in khayraad badan ku jira ha noqoto ama ha noqoto doorka ay ku leedahay nabadda geeska Afrika ha noqoto iyo deganaanshaheeda waxaas leeyahay Somaliland mustaqbalkeedu inuu wanaagsanaado inuu horumaro in horumarka laga caawiyo oo dawlado badan baa doonaya maanta inay xagga kaalmada dawladda Ingiriiska ka mid tahay dhan ma ka mid tahay sanduuq horumarineed baa la sameeyay marka waxay la tahay mustaqbalka Somaliland rajo weyn ma ka qabaa ama horumar ha noqoto ama اعتراف ha noqoto waxaan qabaa mustaqbal wanaagsan baan isleeyahay 10 sano soo socda Somaliland inuu maxaad u jeedin lahayd bulshada aad leedahay aan ugu dambaysiinay maxaad u jeedin lahayd bulshada aad leedahay haydin oday bulshada Somaliland guud ahaan waxaan ugu baaqayaa horta sidii ay awalba yeeli jirtay inuu si nabada loo tartamo in si nabada loo codeeyo waxaana kulliba u rajaynayaa in magacii wanaagsan inuu ka helay doorashooyinkii hore aynu ka helo ama mid ka wanaagsanba waxaan u rajaynayaa shacbiga reer Somaliland oo codsiyaana waxa weeye in ururka wadani ay taageeraan